tirada waxay maraysaa dadka Soomaaliya dhan uu ku dhacay 165 dhimashada waxa waaye ilaa ay hadda 7 ilaahay u naxariisto intii dhimatay 3 qof oo kamid ah 164 taasna cudurkii waa ka raysatay ilaahay waa caafiyay wixii details ay ku saabsan isbitaalka Martini iyo inta jiifta iyo cadadooda isay kala yihiin dhakhtarka noo sheegay isbitaalka 24 saac fariisto wax ka maamula taqaatiirta laakiin guud ahaan waxaan rabay inaan idin sheego tirada inay intaas tahay isbitaalka Martini la socotaan waa isbitaalka dawladda koow oo asteysay in dadka cudurka uu soo rito lagu daaweeyo haddana lagu qaado wixii sample oo dadkii baarista raba inay cudurka iska baaraan lagu ballamiyo meesha looga qaado swabka kadibna loo diro laabka dhexe ee dawladda waxaa soo raaca isbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan dad badan oo waxaa jira soo doonanaya inay isbaaraan waa ku dhiirigelinaynaa bulshada qofkii dareema xanuunka ama iskaga shakiya ama qof qaba la falgalay fadlan inuu soo doonto soo waca nambarka 449 isbitaal Martini lagu ballamiyo kadibna takhtarka meesha jooga uu la kulmo lagu talageliyo marka sidoo uu raadsan lahaa in analysiga laga qaado iyo waqtiga la ballaminayo عدد ahaan waa taas waxaa jira isbitaalka Banaadir in asagana la asteeyay inuu noqon doono qayb kamid ah oo laga gooyn doono qaybta hooyada ee dhalaanka in asagana hadii la cala tirada inta ay buuxsanto isbitaalku sariiraha yaala Martini badna waa 46 sariir iyo ICU da loogu diyaarinayo shoosheeda ay dhimantahay ilaa iyo 25 sariir laakiin la cala hadii loo baahdo in isbitaal Banaadir meel qayb ah loo gooyo irid gooni loogu furo taqaatiirta iyo kalkaaliyayaasha daaweynaya iyo agabkana uu ahaado mid u go'an sidoo kale waxaan kulan la leeyahay mar walba oo aan wada tashi la sameynaa wasiirada maamul goboleedyada caafimaadka iyo wasiiradii kale oo ku jira gudiyada kala duwan oo maamul goboleedka ay sameysteen sidaad la socotiin maamul goboleedyada qaarkood wasiirada caafimaadka ayaa gudiga qaran gudiga maamul goboleed madax ka ah mararka qaarkoodna wasiiro kala ka ah laakiin waa dad wada shaqeeya wasiirada caafimaadka wada hadal ayaa mar walba wada leenahay si aan isula socono waxyaalaha ay u diyaarka ah waxyaalaha u qabsooma iyo waxyaalaha dawladda dhexe ay kala talin karto ama ay ka kaalmeyn karto waxaa jira macaawinaadyo badan oo ka yimid dawlado kala duwan saaka ugu dambeysay USAID TIS+ ay soo dirtay sariiro iyo qalabkii ma aragtay gogosha ah isbitaalada iyo la dhigi lahaa arrimahaas oo dhan waa loo wada qorsheeyaa waxyaalaha la keeno agab kasta oo loogu talagalay in looga hortago cudurka ama lagu daaweeyo waxay qayb ka yihiin maamul goboleedka qorshahan lagu qaybinayo wax allaala wixii soo gaar ama ha ahaadana qalab shaybaar ha ahaadana qalab isbitaalo loogu talagalay ama agabkii lagu daaweyn lahaa xaaladda guud waa sidaas wixii su'aalo ah oo aad diyaaran u nahay inaan ka jawaabno aniga iyo Dr. Cabdirasaaq oo isbitaalka Martini ka falgala oo incident manager ah wasaaradana ka ah agaasimaha nidaamka caafimaad ee wasaaradda federaalka tirada waa badan tahay waa runta 65 waaye 165 waaye dadka xanuunka u soo rito ayaa la keenaa Martini maadaama ay tirada si badanayso sidaan hadday tilmaamay Banaadir waxa loo raadiyay oo looga gooyay qayb dhan oo ilaa 200 laga bilaabo 200 ilaa 300 oo sariir qaada looga gooyaa waxay tahay lacalla hadii tirada ay kororto dadka u baahan in lala tacaalo la geeyo magaalada Xamar ilaahay naga haayo laakiin waa la isdiyaariyaa kaliya ma aha Banaadir waxa la raadinayaa oo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda caafimaadka ay raadinaysaa isbitaallo kale oo iyagana la sii geyn karo tirada waa badan tahay laakiin alxamdulillah tirada siday u badan tahay ee dadka u soo ritay waa yar tahay
waxaa jira dad badan oo jeermis viruska korkooda uu ku jiro laakiin aanan calaamado lahayn asymptomatic wayna u badan yihiin wasaaradda caafimaadka ee takhaatiir badan waa ku dhacay qaarkood ma laha calaamad gurigooday joogaan waa isxakameeyaan koraa laga ogaadaa waa dad isdhowro wax fahmaayo bulshada aan dhexgelaynin intooda badanna waa caafimaad qabaan marka waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu noo dhib yareeyo laakiin dawladda mar walba diyaar waxay u tahay inay raadiso meelihii yacni haddii ay tirada sii kororto oo ay dhacdo in loo baahdo in meel la geyn kara ay jirto marka waa ku tala jirnaa taas qofka horta wuu soo wacdaa waxaa ka jawaaba number qof dhakhtar ah qofka waa loo yeeraa martiinayuu yimaadaa waa la wareystaa waxaa jira protocol wasaaradda caafimaadka iyo WHO ay diyaarisay maadaama dadka ay tira badnaan karaan taleefanada hadda cabdirasaaq uu sheegay waxaa jira kumanaan qof oo soo wacdo iska ciyaaraysa oo laynka buuxisa oo aanan markii la wacana aanan la helayn qofka waxaad dhihi kartaa wuxuu qabaa qofka coronavirus markaad horta lab confirmed case ilaa aad laabku xaqiijisid ma oran kartid qofkan cudurka waa qaba ama waa shaki magaalada yes waana la yiraahaa dad badan u dhintay laakiin waa suspected cases ilaa aad lab geysid oo laabka uu yiraaha positive way scientifically qofka ma dhihi karo cudurka waa qaba horta saasaa lagu socdaa dadaalada waa dabcan wadamada waa la isdheeryahay waxaa la isdheeryahay sida wacyigelinta loo sameeyo waxaa la isdheeryahay waa health systemkooda naga horumarsan laakiin waxaad aragtaa wadamo badan oo ka mid yahay Talyaaniga oo ka mid yahay Mareykanka oo ka mid tahay Iran iyagoo naga teknolojiya badan iyagoo naga cilmi badan iyagoo naga dhaqaale badan haddana siday u dhamaadeen oo yacni ugu halaagmeen waxa ugu horeeya uguna fiican ka hortagga waxa waaye waxa ugu weyn wacyigelinta qofka inuu isdhowro wadamo badan waxay ku badbaadeen inay diyaaradihii joojiyaan in bandow la soo rago in isdhexgalkii bulshada lagu kala ilaaliyo taas waa tan ugu fiican oo looga hortago waana taas tan annaga hadda Soomaaliya haddaan nahay wadan ahaan wadan soo korayaan nahay health systemkeena waa iska masaakiin oo hadda soo kabsanaya waa arkaysaan ma aha secret alaabaha deeqay noogu imaad alaabaha lagu baaro cudurka maanta haddii aan weyno dhibaan galina ma baari karno shay baarka marka annaga naftirkeena waa inaan helnaa kista yar oo aan haysanana inaan si wise u isticmaalno laakiin bulshadii aan ka dhaadhicin oo idinkana qayb weyn ah ka tihiin wacyigelinta in dadkii la baro in cudurkan uu yahay cudur la kala qaado aanan kala sooc lahayn oo diin aanan kala sooceynin oo dhaqaale aysan kala sooceynin oo qof walba ku dhici karo waajibaa naga wada saaran xakameyntiisa oo ka bilaabanayso mar walba in cudurka laga hortago oo la wacyigeliyo oo aan shirar la tegin oo meelaha ciriiriga aan la tegin oo gacmaha si fiican saabuun loogu dhaqdo ilaa 20 second in la iska xakameeyo banaanka dadka cudurrada chronic qaba in taxaddar gaar ah la siiyo laga ilaaliyo waa mahadsan.